Weeraraan 19 qof ayaa ku geeriyooday ilaa 60 kalena oo ay ku dhaawacmeen qaraxyo xalay ka dhacay magaalada Muqdisho. Qaraxu waxa uu ka dhacay oo lagu bartilmaameedsaday qarax xooggan oo khasaare naf iyo maal baa geystay galkii dambe in uu ka dhacay qarax aawina qabtay labada geed qabso labada nooc ilaaha ku maqan qabto Zainab Abdi Macalin ayaa soo gaadhay dalka Turkiga waxayna kulan la qaadatay wasiirka caafimaadka ee dawladda Turkiga Dr. Fakhruddin Koca iyo madaxda ugu sareysa hay'adda TIKA. waxay boqonta goysaa bada wada jikeede waxay boqonta goysaa bada wada jikeede alla awlaadi